أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعاعية أي سمايان سلفون تاوريسم أما وحيالها إنه نقانو براها لقيتها وحفظها دحدودا loo isticmaalo ama wifi ha ahaado internet ha ahaado ama telefoon ha ahaado noocyada electromagnetic wave-ka ama shucaayada ay sii daayaan iyo saamaynta ay ku leeyihiin bini'aadanka shibraha iyo tawraskaasi lagu taagay magaalada dhexdeeda dadka degan iyo saamaynta ay ku yeesheen xanuunada la yiraahdo microwave-yadu ay keenaan waxa la yiraahdaa MSS oo macnaheedu ay tahay microwave sickness syndromes taa macnaheedu waxa weeye xanuuno ay keenaan ayaa jira shucaayadaasi ay soo daliyaan electromagnetic wave-kaasi sharax guudna waxaynu ka soo bixinay markii ugu horreysay inaynu sheegnay qaabka telefoonada u shaqeeyo electromagnetic wave waa isku bedelo marka hore isagoo marka hore antenna telefoon ka baxaya hadana uu towerka galo tower inuu signal si convert gareeyo uu awood kale ku sii daro iyo waxa la yiraahdo home MSG iyo foreign MSG oo iyagana ka soo hadalnay dhinaca kale waxaan ka soo hadalnay oo kale deegaanka sida loo kala qaybiyo hexagon ama cell loo kala qaybiyo iyadana ka soo hadalnay marka daraasadii ugu horeysay waxa sameeyay Russian cilmi-baarayaal Russian ku 1950kii waxayna heleen calaamado fara badan oo ay keenayaan oo ay kamid tahay madax xanuun iyo in qofku fatigue oo noqdo labada markii dhinacyada labada markii oo aad xanuuna dysfunction waxay yiraahdaan ocular dysfunction oo isaguna stresskaasi qofka ku yimaada iyo xanuunadiisa oo keeno diesel baa iyadana kamid oo yeesha qofku qaabka hurdada oo seexanayo ayaa isagana disorder ku sameeyo hurdada kale qofku ka duwan waayo ama uu soo tooskiisa badoo ama hore uu seexan waayo oo kale way sameeysaa taana daraasadaasi markay sameeyeen Russian clinical manifestations ka soo baxay waxay noqotay in markaasi aw hadhow toole waxa aw ka imanaya waxaasi ay tahay tumor cancer oo kale ama dhiig laftiisa oo soo dalaya in badan waxaan aragnay in dadka badankiisu inta badan ay leeyihiin xanuunadaasi macaanka oo kale waqti laga bilaabo 9 wixii ka horreeyay xanuunkaasi aad ugu badnayn dhiigga kuma aad ugu badnayn marka qolada Russian-ka waxay yiraahdeen electromagnetic wave-kaasi saamaynta ay leedahay wax kamid ah tumorkaasi iyo blood change waxay kale soo saareen in cardiovascular abnormalities waxay yiraahdaan oo kale waxa weeyaan macnaheedu qaabka oo kale fertilization uu dhacayo iyo jinsiga bini'aadamka oo kale ayaa isuna saameyn ay ku yeelataa cunto fara badan ayaa jira mineral loss baa jira oo environmentka oo iyagana wax weeye ilooshiyada fara badan ayaa iyaguna yimaada kadib daraasadaasi wixii ka dambeeyay 1970kii ayaa waxay sameeyeen hadana qolo kale oo Mareykan oo American researchers ayaa waxay sameeyeen report ay soo saareen oo lamida kii Russian soo saaray 1950kii reportkaas markaasi waxa uu ahaa wax badan kaga muddo ka hore Russian ay soo saareen waxay yiraahdeen electromagnetic radiations ama EMR kaasi waxa saameyn weyn uu ku yeeshay bay yiraahdeen marka loo eego qaybka ugu dhacayo frequency-ga radio waves-ku frequency-gu qaabka ay u dhacayaan dhinaca fiican ahaan iyo dhinaca antenna ahaan oo tower-ka ku taala ayay kala duwan yihiin bay yiraahdeen oo antenna-ka tower-ka degan dabcan sideen hore u sharaxnay way kala duwan yihiin masaafo gaaban bay ku xiran yihiin masaafo dheer bay ku xiran yihiin saas oo kale iyaguna inta ay ku dareen waa intaasi oo waxa dhinaca masaafada ayay kaga dareen xagga kuwa kale ay soo saareen xanuunada ay daraaseeyeen ay waxna keenayaan oo tawrisu keenayaan waxa ka ganiyo dhinaca biology labada daraasadood waxay aad u kala duwanaayeen dhinaca fox waxay saareen qolo physicalka xagga aragtida iyo muuqaalka ayay saareen qolo waxay saareen dhinaca biology ka ahaan ilaa ay wax soo saaraan qof inta mirir ee uu telefoonka ku hadlo isagoo fadhiya ama isagoo socda iyo saameynta qaabka shucaaca ee tawrisu ku boornay halkan tawarkaas markiisa haya hadana tawarkaas uu gudbinayo qofkii masaafo dheer oo kale 1 kilomitir oo kale ma ku socdo kilomitirkaas waxa laga yaabaa in tawarkaasi kilomitirka aw hayo telefoonka uu ku xiran yahay masaafadaasi iyo laba masaafadood oo dhaxeeya dhexdooda aad joogto oo kale kaamarkaad ka baxdo dabcan tawarkii kale ayaa ku qabanaya isaguna ayaa ku qabanaya MSG-gaagii haya oo foreign bad gashay foreign-kaas markaas uu ku sii gudbinaya kan kale shucaacaas markaad ka baxdo ka kale shucaaciisa ayaa ku qabanaya
marka dhinaca waxay ka eegeen iyagu xagga biology ahaan ayay eegeen marka assessment-yadii ugu dambeeyey labada markaanu ka imano waxa la sameeyey 2001 laga bilaabo ilaa 2020 طبعا دراسadaha iyo waxyaalaha la helayna waxa weeyaan ajiiba kadib waqti waxa jirtay loo jiray waqti waxa jirtay diyaaradaha iyo basaska iyo waxyaalahaasi loo jiray sigaar waa ka mamnuuc oo kale loo jiray oo dadku ay la yaab jireen imika oo kale wax laga yaabaa in dadku ay la yaabaan ay raxdaan oo kale maxaa ahay looga hadlaysaa taawaka looga hadlayaa telefoonka hadalkiisa faraha badan ee isticmaalayso maxaa looga hadlayaa qolo qofku sigaxdaa laakiinse marka hadhow talo la ogaado wax weyn ayay noqonaysaa oo qofkii waxa jira qaabo barnaamijkeenan imika aynu wadno aynu ugu dambaysin doono oo qaabka loo ilaaliya telefoonka mar walba fanaado oo kale wada ma aha hada markaad seexanayso oo kale iska xidho oo kale ayaa wanaagsan nooca waveska kugu jira guriga oo kale waqtiyada la seexanayo oo kale iska waqtiyo oo kale ay tahay taasi waa soo garanaya qofka inta marada uu ku hadlayo ma dhigta ayuu saaraya telefoonka mise earphone ku hadlaya qofku ma jeebadu gashanaya mise wuxuu jeebada hoos u gashanaya mise jeebada sare u gashanaya mise gacanta ku qaadanaya iyada lafteedu waxay leedahay waxyaalo aad ka hortegi kartid marka maanta intaasi ayaan ku koobaya qaybihii daraasadihii laga sameeyey kuwii ugu dambeeyana dabcan waxa weeye India Latin America Brazil ay ka mid tahay iyo Mexico France UK ay ka mid tahay mid walba maxsuulka ka soo baxay waxyaalo yaaba weeyaan marka inagu daraasadaas ayaan sameynay xag loo kala ahaan hadii la yiraahdo waa inoo barnaamijka ka xiga wifi-ga gudaha dhigan iyo dabcan telefoonadaas smartphone-ka aynu isticmaalno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.